siyaasadeedka wadani mar labaad taageerayaashiisa magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed isugu soo baxeen barxadda hore xafiiska uu ku leeyahay magaalada Oodweyne halkaas ay ku sugnaayeen 17 musharax oo uga qayb gali doona tartanka doorashada golayaasha deegaanka degmada Oodweyne iyo waliba mas'uuliyiinta heer gobol ee siyaasadeedka wadani waxaanay taageerayaashu ciyaaro kala duwan ku soo bandhigeen barxadda hore ee xafiiska dashan ay ka hadleen waxgarad iyo cuqaal ugu horeynba waxa hadal ka soo jeediyay Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo ah gudoomiyaha siyaasadeedka wadani ee gobolka Oodweyne isagoo ka hadlayana wuxuu yiri taageerayaasha sida wacan ee hagar la'aanta isu soo abaabulay tan iyo maalintii ololaha doorashooyinku bilaabeenna heegan ayagana mahad ballaaran ayaan soo jeedinaya sida wadani ha guulaysto taageerayaasha ka sharaxani ha guulaysteen waxa la yiri dabkii baxaya dab lagu qabsadaa deelqi ka baxaya laba dul fadhiisto waxa iyaguna ka hadlay xildhibaan Cabdixakiin Nuur Muuse xildhibaan Cabdixakiin Dalaax Ibraahin xildhibaan Mawlid Daahir Xirsi xildhibaan Axmed Maxamed Yuusuf Silaayo iyo waliba xildhibaan Shabcaan kuwaas oo soo bandhigay barnaamijkooda siyaasadeed hadii ay ku guuleystaan xilka waxa weeyaan inaanu sameeyno higsi la taaban karo oo aanu ka shaqeyno horumarka iyo dadka gobolka Daadmareed kadib waxa sharaf leh waxa noo wanaagsan maanta inaanu tustaan taageeradiina ballaaran ee aydan siinin xisbi qura oo yimi gobolkan sharaxayn oo dadkii maanta hayb raacday waxaan leeyahay shacabka reer Oodweyne ka dhigay horumarkiisa hayb raacina waxa raacay aniga hay codeynina qofka Oodweyne horumarka u qabanaya oo codeeya xisbi kasta ku jireen waxaan taaban doona waxa kamid ah hadii Ilaahay lagu guuleeyo dhuldaaqeenka dhulbeereedka xoolaha cashuuraha oo maanta aan gobolkeena wax cashuur u qaadaan lahayn isku soo wada duuba isku soo baxanaysa ka isugu soo baxeen taageerayaasha wadani ee magaalada Oodweyne ayaa ahaa mid ay xamaasadi ku dheehan tahay Leila Careef Maxamed telefishinka caalamiga ee Home Cable TV magaalada Oodweyne